kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo aan abaynu kugu soo gudbino war wixii ugu weynaa oo dalka ka jira fadlan haddii aad ku cusub tahay barta youtube-kan ku leenahay subscribe saar qodobada ugu waaweyn kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo aan abaynu kugu soo gudbino war wixii ugu weynaa oo dalka ka jira fadlan haddii aad ku cusub tahay barta youtube-kan ku leenahay subscribe saar qodobada ugu waaweyn oo aad maanta warkeena ku daawan doontana waxaa ka mid ah xootooyinta Yemen oo sheegay inay nolosha ku qabteen kumanaan ka tirsan ciidanka Sacuudiga. Kenya oo sheegtay in dalkeeda uu soo galay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mid ka mid ah ilaaladii ugu caansanaa boqorka Sacuudiga oo la dilay. Kolonyo ka tirsan ciidanka AMISOM oo qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho. Su'aalo ka dhashay sida uu Kenya ku galay sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya ay hore u sheegtay in ay qabatay. dab weyn oo qabsaday xarunta tareenada Haramayn ee dalka Sacuudiga. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa warkeena. Waa tahay daawadayaal aynu ku bilaabana warkeena. Xoutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay nolosha ku qabteen kumanaan ka tirsan ciidanka Sacuudiga. Jamhadda Xoutiyiinta dalka Yemen ayaa shaaca ka qaaday inay nolosha ku qabteen kumanaan ka tirsan ciidanka Sacuudiga kadib weerar xooggan oo ay ku soo qaadeen goob u dhow xuduudda labada dal. Afhayeen u hadlay jamhadda Xoutiyiinta Yemen ayaa sheegay in ilaa iyo 3 guuto oo ka tirsan ciidanka Sacuudiga ay isdhiibeen isla markaana ay ciidan kale dileen intii howlgalkaasi uu socday. Howlgalkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa ee dhacaya kumanaan askari looga qabto waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu bilowday howlgalka xulafada Sacuudiga. Telefishinada ku hadla afka Xoutiyiinta ayaa sheegay in la soo bandhigi doono ciidamada halkaasi lagu qabtay ayna xaqiijin doonaan. Xoutiyiinta Yemen ayaa dhawaan sheegay in ay ka dambeeyaan weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn oo lagu burburiyay xarumo shidaal ee waddanka Sacuudiga uu leeyahay. Daawadayaal xogta maanta ayaad naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Qodobada kale oo aad maqli doontaana waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay in dalkeeda uu soo galay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inuu dalkeeda soo galay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo horey ugu jiray gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warkan oo ka soo baxay laamaha amniga Kenya ayaa lagu sheegay in sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabdulwaaxid Ciise Khaliif oo ku magac dheer Ciise Tarabuun uu gudaha u soo galay dalka Kenya 24 bishan September. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in sarkaalkan ay gacanta ku dhigeen isla markaana maxkamadda la horkeeni doono, balse wixii waqtigaasi ka dambeeyay ma jirin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sarkaalkan oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ugu dambeyntii Kenya ay sheegtay in dalkeeda uu soo galay sarkaalkaasi. Dhanka kale, su'aalo badan ayaa ka dhashay sababta ninkaasi uu gacanta Soomaaliya uga baxay. Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shir jiraa'id uu xilligaasi qabtay waxa uu ku sheegay in ciidamada amnigu ay gacanta ku dhigeen madaxii amniyaadka Al-Shabaab oo magaciisa uu ku sheegay Cabdulwaaxid Khaliif oo loo yaqaanay Ciise Tarabuun. Waxa uu sheegay inuu ka dambeeyay dilalka ka dhaca Muqdisho oo uu bixin jiray fasaxa ugu dambeynta ah ee qofka lagu dilayo. Hase ahaatee 2 sano kadib waxaa lagu soo baraarugayaa qoraal booliska Kenya ka soo baxay oo ay ku sheegayaan in ay ninkaasi gacanta ku dhigeen. Lamana oga sababta dhabta ah oo ninkaasi gacanta Soomaaliya uga baxay. Arrintan ayaa durbaba dhalisay su'aalo kala duwan oo ugu horeeyo baraha bulshada dadka wax isku weydiiya, kuwaasi oo dhaliilo badan ka keenay sida amniga Soomaaliya lagu aamini karo gacanta booliska. qaabka ay ku suura gashay baxsashada sarkaalkan sare ee ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale wixii ka dambeeyay bishii June 2017 ma jirin wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku saabsanaa ninka ay sheegeen inay qabteen iyo halka lagu maxkamadeeyay. Waqti maanta ayaa daawadayaal weli naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar. Markana kolonyo ka tirsan ciidanka AMISOM ayaa qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho. Kolonyadan ka tirsan ciidanka AMISOM ayaa saakay qaraxa waxaa lagula eegtay agagaarka isgoyska Soos ee degmada Hilwa, halkaasi oo ay marayeen iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan.
qaraxa ayaa waxaa la sheegay in lala haleelay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM waxaana qaraxa kadib la maqlay rasaas fara badan oo ay ku fureen ciidamada AMISOM. ugu yaraan 2 ruux oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxa oo kuwaasi oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana la ogeyn khasaaraha soo gaaray ciidamada AMISOM. goobta qaraxu ka dhacay ayaa lagu kala cararay, waxaana duubaba goobta soo gaaray ciidamo kale oo AMISOM ah kuwaasi oo gurmad u fidinayay ciidanka la qarxiyay. isgoyska Soos ilaa iyo suuqa xoolaha ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu weeraray ciidamada AMISOM, waxaana qaraxyo kala duwan lagula beegsaday halkaasi, iyagoo halkaasi ku leh saldhig weyn oo lagu magacaabo xerada Maslax oo inta badan marna ka soo baxaan marna ay galaan saldhigaasi. weli daawadayaal waxaa naga daawanaysaan xogta maanta, ballanteenu waa subscribe, share iyo comment. markana wadankaasi Sacuudiga, mid ka mid ah ilaalada ugu caansan ee boqorka Sacuudiga ayaa la dilay. mid ka mid ah ilaaladii ugu caansanaa ee boqorka Sacuudiga, boqor Salmaan, ayaa dhintay kadib muran shakhsiyadeed soo kala dhaxgalay isaga iyo askari kale oo saaxiibkiis ahaa. Major General Abdulaziz Al Faham oo aad ugu dhawaa boqorka Sacuudiga marar badanna muuqday isaga oo dhinac taagan boqorka Sacuudiga safaro badan oo dibadda u raacay ayaa geeriyooday. waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray askari saaxiibkiis ah rasaas uu ku furay. arrintan ayaa ka dhacday magaalada dekedda ah ee Jidda, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SPA loo yaqaano, waxayna sheegtay in Al Faham uu dilay askari kale oo uu ku booqday guriga saaxiibkiisa. ninka dilka geystay ayaa diiday in uu isu soo dhiibo kadib markii ay boolisku halkaasi gaareen, iyagoo boolisku ka agdhawaa, waxaana isagiina toogasho ku dilay askari kale oo ka tirsanaa booliska. halka daawadayaal aad naga daawanaysaan waa xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar, sii share gare, commentina waa dhankaaga. wararka Sacuudiga ayaan weli daawadayaal ku dhex jirnaa. dab weyn ayaa waxa uu qabsaday xarunta tareenada Xarameyn ee dalka Sacuudiga. wararka ka imaanaya dalka Sacuudiga waxa ay sheegayaan in dab xoog leh uu qabsaday xarunta tareenada ee ku taala magaalada Jidda, iyadoo weli lala tacaalayo dabkaasi ayna la tacaalayaan kooxaha dabdamiska. warbaahinta Sacuudiga ayaa waxa ay sheegaysaa in dabku uu qabsaday xarunta tareenada Xarameyn ee magaalada Jidda, gaar ahaan xaafadda Sulaymaniyah. muuqaallo laga helay dabka ayaa muujinaya inuu yahay mid aad u xoog badan, iyadoo hawada uu isku shareeray uurada iyo holaca ka baxayay dabkaasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay. dabka qabsaday xarunta tareenada Xarameyn ee magaalada Jidda ayaa la sheegayaa inuusan wax khasaare nafeed ah geysan marka laga reebo burburka ka dhacay qaybo ka mid ah xaruntaasi. daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii maantay aan hawada idiin soo marsiin lahayn. fadlan bartan markasta rukumo subscribe.